markaan ku yiraahday wasfahma wanay banaankaas kala marayna biigu yiraahday waxaan ka hayaa intaasoo fiidiyowyadiiba ii soo diray mise waa anigoo qaawan oo maaragtay waxaan ku yiraahday aan dharba inta badan aan dhar qabinba nin adduunyo joogow maxaa aragti ku laaban ayay dhahdaa markaan oo kale Soomaalidu bal ku soo dhawaada warbixin aan idinku hayno ninka la yiraahdo Maxamed Deeyow ee ka duubay muuqaalka fadeexada ah gabadhan miskiinta ah ee la yiraahdo Cayuuni Qurux oo kamid ah gabadha ugu quruxda badan ablaha Soomaaliyeed wuxuu u quuri waayay quruxdeeda wuxuu u quuri waayay sharafta iyo sumcadda ay ku leedahay guud ahaan Soomaalida waxauna ka doorbiday inuu ka duubo muuqaal fadeexa uu ku dilayo sharafteeda iyo dumarnimadeeda Maxamed Deeyow waxa uu horay muuqaal uga duubay gabdho Soomaaliyeed sidoo kalena waxyaalaha uu caanka ku yahay ayaa ah in muuqaaladan uu geeyo barta YouTube-ka ama barta social media ee Facebook, Twitter iyo waliba Instagram-ka haddii qofka uu ka duubayo uu siiyo kharashaad waa uu la macaamilayaa balse qofkii siin waaya lacag waxa uu isku dayayaa inuu ugu hanjabo inuu dhigayo baraha bulshada waxaanu la xiriirnay isla markaana aan khadka taleefanka ku wareysanayna wiil la dhashay Cayuuni Qurux oo sheegay inay hadda ku sugan tahay xaaladii ugu dambeysay isla markaana ay doonayso inay isdaldasho oo naftiisa ka siibto taasina ay ku kaliftay muuqaalkii fadeexada ahaa ka waran nooga warbixi qaabka ay hadda xaalad hay ama sida nolosha hadda ay ku sugan tahay walaalo Cayuuni bal nooga waran وريبان ومحسنتان معه أحمد ويل كل اشتاق عيوني واسكت عندك لكن مقعد عادي عالي وهاي واقف مركا والله هذا قبل واسكت بنتا متقنا والله هيا واقف مركا ما أنت أنا متقنا حافظ قولك كم صور إن أنتظر وقصنتي واقف مركا واقع waxa kale ay wajiyeen xaafada ka waran dhamaan hooyo iyo aabe iyo dhamaan dadkii family-gii markii muuqaalkan abraha bulshada dadku ku faafiyeen maxay dareemeen iyaga laftigooda walwal dareemeen hadda waxa waaye in dacwo furayaan saas markaa dabaharay wariye gabadhan horta qaana cuntada ka soontay qolka ma soo baxayso aad marka in isdishaxta waa mtaqana waa laga baqaa aad wararka qaar waxa ay sheegay in ay marxita isku dayday inay suncabto oo mtaqana warar aan xaqiiqadooda lahayn bay ahaayeen balka war adiga ma noo xaqti ka dhaarinta wax ka jira ma jiraan soo arin iska propaganda ayo abuura wari waa maasantaa way jiraan qolka mtaqana waa wardiinana inka midiyaha iyo mtaqana iyo waxyaabahaas laga ilaaliyay marka هذا متقنا يعني ويسكرونتا لكن والول بدن إلى استشار لك بقى أنتم معنا سنتين وكسونتي وكسر. أديان. أديان واسكا أول بدن تهي أنت أدوان واحد محير أنتاس إذا خبصتي كفاميل أهان يمتقنا كان أهان بأدوان إذا كعبرين دا وحنا ردينا إن أرنتاس حقيقة وقتين نك كذوب بمقالك أما كذوب بمقالك سوري وكذا بجدا. وريه waa ogaanay gabadha ayada noo sheegtay waxay dhahday Maxamed Deeyow waaye ayada gabadha noo sheegtay hal mar ugu jeexay magaciisa sidoo uu maqlan magaciisa maxaa la dhahaa Maxamed Deeyow ayada noo sheegtay waxay kale noo sheegtay